adeeg caafimaad oo qiimo jaban, gaar ahaan hooyooyinka uurka leh. Kombiyuutarka uurku jirta waxaan uga dhignay $15 oo ay hal mar bixinayso inta ay ka dhalayso mar waliba oo ay u baahato waa bilaash. Faa'iidadiisu waa maxay kombiyuutarka uurku jirta? Muhiimadda ay u leedahay hooyada inay saarto kombiyuutarka uurku jirta waa inay ogaato marka ugu horeysa ilmaheeda halka uu ku abuurmay minka iyo meel ka baxsan minka, caafimaad qabka ilmaha, sidoo kale wadna garaaca dhabta ah ee ilmaha, biyaha ay ku dhex jiraan ilmaha, iyo mandheerta halka ay saaran tahay oo ibida halka ay saaran tahay, caafimaad qabka ilmaha. Ilmuhu sidoo kale diyaar ma u yihiin inay dhashaan oo madaxoodu ma hooseeya ama waa luga keen ama daba keen iyo wax la mid ah. Sidoo kale hooyadu waxay ogaan kartaa haddii u baahato nooca ilmaha ay sido, wiil iyo gabar, intaba way awoodaan inay ogaato. Waxaa sidoo kale kombiyuutarka looga hortagi karaa haddii ay jiraan abnormalities ama qaybo caafimaadka jirka ka mid ah isbedel hadduu ku jiro, sida ilmaha faruuran oo kale iyo waxyaabaha la xiriira. Sidoo kale si dhab ah waxaa loo arki karaa structure qaab dhismeedka canuga, lugaha ilaa madaxa inta u dhaxaysa. Hooyadu waxay heli kartaa imaging ama sawir ilmaheeda sidoo yahay. Waxay ogaan kartaa xilliga ilmaha ay sido ay dhalanayaan iyo miisaankiisa dhabta ah. Hadda waxa aad aragtaan waa lugaha canuga. Lugtiisa wata si fiican. Halkan waxaa laga ogaanayaa wiil iyo gabar waxa uu yahay. Canugan hadda waa gabar. qayb ka mid ah wajiga aad aragtaan dhinaca gacanta canuga. Tani waa lug. Gacan. madaxa qayb ka mid ah. waxa madow ee xubnaha canuga ka dambeeya oo dareemaysaan waa amniotic fluid ama biyaha canuga oo ku dhex jiro. qaybta sare waxa saaran waa mandheerta canugan muuqda oo xubnaha hadda mid soo baxayso waxa ka sareeya ee kalarka kale ah waa mandheerta canuga ama ibida. kan waa wajigiisa indhaha aad arkaysaan. lugaha ku soo noqonay. wajiga gacan.